حسن محمود والصومالي هدي اللي وايو دارود اسماعيل بان adigana hawiyata aanu heshiino nin la maqoonin karo bal cagaa dhulka nalagu dhufan karo nalama maqoonin karo nalama absheegan karo hadii maxaan leeyahay Soomaali wada jirta la waayo adigana hawiyaad noqon waad istaqaana annagana daarood baan hayo waa isaqaana waana nala yaqaanaa ha isku dayin inaad leenka aad leedahay ka baxdo madaxweynahan ay cid lagu maqoonin haday jirto kuwa ka horeeyay fara badan adduunka yaa wax maqoonin lahaayeen cid la maqoonin karta ma laho Jubbaland reer daarood la yiraahdo laga soo bilaabo luuq iyo raas Kamboni oo Kenya ku taal xuduudkeeda beesha daarood Ismaaciil la yiraahdo yaa degan dhulka asaga dad yar oo ku dhex jiro Soomaaliya waa jiraan dadkii asaga ahaa go'aan waxay ku gaareen Jubbaland inay dawladooda dhistaan bay ku gaareen cid kale oo lagala tashanayana ma leh haddaad dastuur aad samaysata anagana kuma samaysana haddaad qabiil isticmaasho anagana qabiil baa isticmaalay haddaad saaxiib leedahay adduunka dhan anaga saaxiib leedahay haddaan heshiin weyna adda daarood anagana daarood baan nahay adigana hawiyata saacada wixii ka bilowdana waxaan soo saari doonaa meel ay joognaba inaan dhahno kalsoonidii lagu dhisay waan kaala noqonay madaxweynaha Soomaaliya gobol la yiraahdo waqooyiga Soomaaliya Somali British Line oo labadii gobol ee xoroobeen gobolkii Soomaaliya oo dhan u hor xoroobay ayaa goostay muddo 40 sano ku dhow ilaa maalinku soo galay maanta kama hadlahayo dagaal baa ka dhacay ehli gobol daaroodku uu degan yahay oo Khaatumo la yiraahdo oo gobolada Soomaali kuwa ugu muhiimsan kamid ayaa ka go'ay gobolkii asaga ahaa ilaa hadda inuu aqoonsado oo uu gobolnimo u aqoonsado wuu diiday macnaha hadalkaygu wuxuu ku saabsan yahay eed aan madaxweynaha toos u leeyahay nin Soomaaliya baan ahay oday 8 jirana waan ahay qabyaalad Soomaalina ma dhowri karna annaga oo qabiil ku saabsan waa tii meesha Soomaali dhigtay maalinku soo galay ninkaas la yiraahdo Xasan Maxamuud wuxuu dagaal ku bilaabay Puntland iyo dagaal ku bilaabay ilaa maanta Puntland way ka maqan tahay gobolada kale way ka maqan tahay Khaatumana wuu diiday inuu aqoonsado meesha la yiraahdo maxay ahayd Jubbalandna waa diiday inay xor ahaato oo waxay rabto sameeyso isticmaalka daaroodka kali doonanayo muxuu ahaa shalay wuxuu yiri Soomaaliya oo heshiis ah umadahana la heshiis madaxweyne soo galay oo hal qabiil la qaybinayo waa midkii loogu horeeyay kan noqo arinta yare daarood la'aantii dawlad ma dhismayso been baad naftaada u sheegtay kuma inkirayno kuma bariyayna anaga haddaan hayso haddaan daarood nahay kuma bariyayno waa inaad ka noqoto Jubbaland aad xornimadeedu u ogolaataa is doorato Puntland waa inay wadanka ku soo noqoto oo waxa ay diidan tahay laga ogolaado Khaatumana waa inay aad aqoonsato oo afkaada ku sheegto adduunyadu u sheegto meel bariga hore la baadiyay oo nabakaas baadiyeen haddana ku soo noqotay Soomaali inay ka mid tahay wixii aan waxa ka ahayn nin walba qabiilkiisa waa la yaqaan hadii Soomaali